firirkii baa ku dhacay, firirkii baa gaaray, ma garatay. waxaasoo dhan firirkii baa u soo baxay oo ku dilaacay meesha ku dhacay. wiilka koowaad oo ku dhacay, kadibna labada kale gudaha ku jirto ku dhacay, kadibna laba yar oo ayagana dhaawac ahaa oo firirka gaarayna waa ku dhinteen. Alla ya raxma. dhimashada labada marka hore ay saddexda dambe intee u dhaxeeyay? waxaa u dhaxeeyay waraan hal saac u dhaxeeyay. marka halkaas saac wax gurmad ah oo dadkaas loo fidiyay ma jirtaa? ma wax gurmad ma jirin, meel la maro ma lahayn, meel la maro lugta la dhiga ma jirin, meel walba waxaa hadda waxaad ku sugan tahay Garowe, waxaad u socotaa Boosaaso, waa laga horduugay, Ilaahay u naxariisto. marka arintaas cid kula soo xiriirtay oo dawladda iyo dhinacyada ka tirsan oo arintaas kaaga tacsiisay dhibaatadaas xanuunka badan ee qoyskaaga gaartay ma jirtaa? ma jirto. diriska un baa iga tacsiyay, dadka aan isnaqaan maan wax dawladda iga tacsiyaysa ma jirto. si kooban maxay tahay fariinta aad dirayso oo u dirayso dadka Soomaaliyeed iyo dhibaatadan xanuunka badan oo qoyskaaga si gaar ah u soo gaartay? kulli wixii Ilaah keeno waa mahad Ilaah, ma dhinto waa Ilaah. marka waxaan leeyahay hadday dhinteen Ilaahay naxariista jannaalaha ka waraabiyo, wax kale oo dhahayo ma jirto. Siciidow, su'aasha u dambeysay in kulli xaalad adag baa ku jirta, waana kula dareemaynaa. shantaas ilmood da ahaan intee kala ahaayeen bal si kooban? 31 jir ah. marka saddexda adigu aad dhashay da'doodu maxay kala ahaayeen? 6 jir. 31 jir, 7 jir iyo 6 jir. labada kale oo aad awoowaha u ahaydna intee imise ay jireen? waxay kala jireen 7 iyo 3 sano. ay kala jireen mid 7 midna 3 sano. musiibadaas xanuunka badan ee ku dhacday qoyska Siciid Siidow oo ah madaxa cunno kariyaasha shirkadda Wadaagsan oo ah shirkadda dhisaysa dekadda Garacad. si in wax uga sii ogaano waxa ila jooga oo bidixdeeda taagan Axmed Sahal oo kamid ah mas'uuliyiinta shirkadda Wadaagsan. Axmed, Siciid iyo qoyskiisa sida ay wax soo gaareen bal si kooban. aad baa u mahadsan tahay Zakariya iyo warbaahinta ka socotidba. musiibadaasi shalay maahayn daraad baa naloo soo sheegay markii subaxii aroortii ay ahayd salaadii subax intaan la gelin ka hor iyo dhacday. wiilka weyn ee dhimanaya 31 jirka ah aamin 36 jirka ah weysu la soo kacay, banaanku la fariistay. intii weysada uu u fadhiyay ayaa waxa weeye asagoo weysadiisa ku jira hoobiyaha guriga ku dhacay, firirkii isaga ku dhacay iyo 4 ciyaal oo kale. markii horeba 3 uu maaragtaa galaaftay oo ku dhintay, meeshay ku qurbaxeen 3daas. odaga markii waxaa loo soo sheegay ninka ku xigay ninkaasoo 31 jir oo guriga joogay iyo maamadii baa badbaaday. isagii baa taleefanka u soo wacay aabihiis oo xafiiskiisii Garacad shaqadiisii ka wata. wuxuu ku wargeliyay in maaragtaa ilmahaasi meesha ku baxeen 3, labada kalena ay dhaawac yihiin. labada kale uu yiri marka la carara oo isbitaal yeegeeya. waxay raaheen isbitaalkii madaxa ma qaadi karno oo ma geyn karno oo ma gudbin karno, way geyn kari waayeen. sidaa daraadeed waxay noqotay in guriga la isiga hayo. wuxuu yiri isiga haya, dhaawacoodii baa waqti lagu qaatay in haddana dib loo isbitaal loo geeyo. waxay dhacday sidii loo celcelinayay muddo. markii duhurkii loo dhawaaday in xabadii xoogaha yaraatay ayay dibadda u soo qaadeen. isbitaalkii markay la imaadeen waa dhinteen baa liiri. way soo ceshadeen meedkii. 5 yoomeeda guriga lagu soo celiyay. islaantii maamada guriga ka ahayd markii intaas isku dhacday waliba kuwan la soo celiyay waaba dawaqday, waa miir dabalantay. markii soo miirsatay kadibna caadi bay u waalatay. waxay noqotay marka in iyadii la celceliyo, la xirxiro oo la qabto dadkii dariskii wixii maaragtaa meesha joogay la isugu soo baxo. sidaas marka iyadii hadda iyadoo xalay oo dhan la quraan saarayay ay noqotay maaragtaa safarkiisii in haddii Ilaahay uu yiraahdo hadda uu goobta naga tagay oo aan gaarigii sii saarnay.